والله waxaa la leeyahay baarlamaanka 105 mudane ugu yaraan ayaa waxay wataan dhalasho aan Soomaali ahayn oo jinsiyada kale ay wataan bal inta aan u iman kuwaas kale falanqeyntooda adiga kuwee ka tirsantahay aniga dhalasho labaad waa haystaa waxaan haystaa dhalasho wadan Canada waxaan isleeyahay waa ka khatar yarahay kuwa dhalashada Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti iyo wato wadamada yani mataqaana dariska waa ka khatar yarahan leeyahay laakiin aniga waxay ila tahay dhalashadan waa wax ka dhashay colaadi dadkan anigu Canada weligeena ma tageen hadii aan wadanku burbur ku imaan lahayn marka anigu ma aaminsani inay dhibaato weyn ay tahay marka laga reebo kuwa ama ku abtirsado wadamadan dariska marka laga reebo anigu wadamadaas hore dadka ka yimid dhibaato weyn uma arko xagga daacadnimada wadankii daacad u ahaanaya laakiin waxa la isweydiin karaa sidee qof laba qaran matali kara dhinacna Soomaali ka ah dhinacna dal shisheeye dhalashadiisa ka wata labadii dal oo u dhaxeeyay oo labadaba daacad ugu noqon kara waliba marka aan Soomaali u imaan oo meesha aan rabo inaan tilmaamo waa adag tahay in daacadnimadaadu ay laba u qaybsanto taas waa xaqiiqo waaye marka wadanku ka fog tahay oo wadamo aad yani aan Soomaaliya dana badan kala haanaynin yani dhalashadiisa haysatid waa ka khatar yar tahay marka dhalashadaadu ay mid runaba sii tahayba oo ama Ethiopia aad ku dhalato nin Ethiopiana ba tahay laakiin marka la isweydiiyo tusaale danaha Canada ee Soomaaliya ka leedahay hadii ka Cabdullaahi ahaan adiga lagu wakiisho ilaa sharcigoodii baad wadataa Soomaaliyaanay muuqan kareen in aad danahaasi fuliso adigoo shacabka Soomaaliyeed hagardaameyn kara waa laga yaabaa yani inta badan waxay ku dhici kartaa dhinaca basaasnimada oo runtii qofkii in loogu soo dugaalo dhalashadaas in basaas uu noqdo iyo wax noocaas laakiin aniga hadda waxaan isleeyahay duruufta hadda Soomaaliya maanta taagan waxyaalaha ugu horeeya ugu dhibka badan ma noqon doonto laakiin in isha lagu haayo dadkan dhalashada gaarka wato in hay'adaha nabadgelyada wadanka ay isha ku hayaan waxa ay yihiin waa muhiim walow ay si adkaanayso maxay qofkii waaba xildhibaan wuxuu leeyahay xasaanad ilku haynta laftirkeeda ayaaba dambi noqonaysa yani sharcigeena daafiris marka runtii khatartaas way jirtaa aadan aaminsanahay khatar inay jirto laakiin waa mid lala noolaa karo inta duruuftan kale waa weyn lala macaamilayo maalintii aan ka baxno duruuftaas wadanku dib u xisaabtami doonaa yaa mas'uul u noqon doonaa ma doonto arinta markaas ayaa aaminsanahay inay habboonaan lahayd in lala macaamilo mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa tahay in badan fahansan waxa wadaniyadu tahay oo siyaasiga waxa uu qaban karo Soomaaliya marka imaanana waxa la samata bixinayaa dal rubac qarni baaba'sana misdhihi kartaa mudanayaashan baasaboorada wata iyo siyaasiyiintan sharciyada shisheeye wata way wanaagsanayd inay jaanis siiyaan kuwa dal jooga ah oo og Soomaaliya dhibaatada ay marayso waa runtii waa su'aal wanaagsan laakiin aniga saas ma qabo wadankeena markuu burburay aqoon soo dhismaysay sanado ilaa xorriyada intaan qaadanay soo dhismaysay ayaa subax wadanka ka hayaantay marka aqoontaas baxday anu ma aaminsani qoladan wadan gudihiisa wax ku baratay inay bedeli karaan ma aaminsani maxaa yeelay waa la shaqeeyay waa arkay tayadooda arkay iskoolaadka xamar waxa ku dhex taalo 100 iyo xoogo miyaa maqan jaamacadood oo mid walba magac dariiqa yani sidii tabakaayada loogu qorqoray jaamacadahana waa naqaanaa waxay yihiin iyo dadkay soo saaraan iyo quality-gooda iyo waxay yihiin si fiican u naqaanaa marka wadanka dana ugu jirto aqoonti ka tagtay inay soo noqoto laakiin qatar baa la muujinayaa inay jirto dhanka kale oo ku aadan dadkan inaanay daacad u noqon karin Soomaaliya sababtuna loo samata bixi waayo waqti dheer oo Jaanis yeesho Soomaaliya inay dhankaasi ka taagan tahay may saas lama dhihi karo runtii weli ma arag qof dibadda ka soo noqday oo ka xamaasad yar oo ka dadaal yar oo ka shaqo yar amaba yani mataqaanaa dabandaabiye sameynaa ma arkin mana qaba inay taas jirto
laakiin xiisad waxaa jirto dadka wadanka gudihiisa wax ku bartay ee joogay iyo dadka yimid ay u dhaxayso muxuu ahaay xogo isriixriix yar loolan uu ka dhexeeyo. Inta badan waxaa aragnaa sirta dowladda Soomaaliya iyada oo ay faafinayaan hay-ado kale. Tusaale waxaa la sameeyaa dib u eegis ay hay-adaha sameynayaan. Mararka qaar waxaa jira research ama baaris ay ku hayaan siyaasadda Soomaaliya oo kale. Arrimahaasi ayaa la yiraahdaa waxaa xogtaasi bixiya dadka labada sharci wata. Taasi maxay miyayna noqon karin? War jira maaha. Warkaas war iska waxa waa fadhi ku dirir waaye. Muxuu ahaa dadkan labada jinsiyad wata ee wadanka ku soo noqday ee aqoonta soo kordhiyay ee dhaqaalaha soo kordhiyay mataqaana xirfadda soo kordhiyay lama dhihi karo waxbay gudbiyaan wadankaana sir u qarsoon miyaaba jirta wax hadda qarsoona la qarinayo ma jirto mar hadiiba ciidankaagi mushaar uu dad kala siinaya ajnabi ee intay soo istaagaan iyaga ay payrollka istaagayaan ay ogyihiin inta mushaar qof ay siiyeen ay ogyihiin dadku yani wax ku qarsoon oo kala miyaaba jira yani anu ma qabo warkaas waa war iska mataqaana iska meel hoos ah. Soomaaliya iminka doorasho ayaa ka soconaysa la rabo in 8 bisha madaxweynaha soo socota madaxweynaha Soomaaliya lagu soo doorto bal ka sheekee farigelin intee leeg ayay wadamada jaarka la Soomaaliya iyo kuwa aan jaarka la ahaynba Soomaaliya ay ku hayn karaan doorashadaas ama hadda ay ku lug leeyihiin. waa su'aal aad u wanaagsan ummadda Soomaaliyeed runtii aad ay uga dharagsan tahay faragelinta shisheeye dowladda Imaaraadka waa la sheegay lacag badan ay halkan ku hayaan lacag ay xaq ku hayaan maamul goboleedyada meel isku geynayaan xaq ay kala waxaynayaan danahoodana Soomaalida siday u arkaan aad ay uga sheekaystaan khaasatan dadka siyaasiyiinta muxuu ahaa wadanta waxaan ay u faragelinayaan aad looga warqabaa dowladda Itoobiya maba laga hadlayo faragelin maahana gacmaha dhana kula jiraanba oo runtii si aan caadi ahayn ayay faragelin u sameeyaan ilaa inta aan ka warqabay xitaa shakhsiyaad oo xubno baarlamaanka xitaa ay la hadlaan ilaa adiga 3 qof aan arkayba oo ii sheegeen Itoobiya nala hadasho sanitary inta kalena baarlamaanka tirsan inta kalena waxaan arkaynaa gacmo maroojin badan oo yani mataqaana laga sheekeynayo oo la waxaynayo dan uguma jirto inay saa sameeyaan haday yani mataqaana si yani saalix u fikirayaan dowladda Kenya laftirkeedu kama mara faragelinta waad arkaysaa mas'uuliyiintu inay halkan wada imaanayaan la shirayaan yani muxuu ahaa sumac lagu mahayo meeshaas danaha Soomaaliyeed ayaa laga wada hadlayaa waxa laga hadlayana waa dowlad ajnabi oo daris dowlad Djibouti faragelin laftirkooda way ku hayaan laakiin faragelin Soomaaliya waxay aaminsan tahay inay saameyn muxuu ahaa wax faa'iideynayso faragelintoodu leedahay saas la aaminsan yahay anna waa aaminsanahay inay saas tahay wadamada kale ka baxsan muxuu ahaa regionka iyaga laftirkooda faragelin way ku hayaan laakiin waxay doontaa ha noqoto faragelintan aakhirka wax dooranayo waa 328 xubnood oo baarlamaanka Soomaaliyeed matalay aqalka sare iyo Cabdullaahi waan kartay waxaad ii sheegtay in dawlado fara badan ay Soomaaliya faragelin toos ah ku sameynayaan haddad banaato ama yaanay dad badan mudanayaal baa ku sheegay in dawlado shisheeye wax u soo sheegtay oo adiga ba qareyso soo lama dhihi karo dadkan Soomaalida wax dooranaya bulshada waxa looga dhigayaa dad Soomaaliyeed laakiin waa dad badankood huwan shaatiye shisheeye oo aragtiyo shisheeye wax ku dooran karo Soomaaliya muuqanayta haday taas muuqanayso runtii cabsideeda iyo warkaygu intaan waa ka duwanaa lahaa waa shakhsiyaad hadii ay jirtana waa shakhsiyaad ana waxa aaminsanahay ummadda Soomaaliyeed baarlamaanka maanta u fadhiyo inuu baarlamaan u shaqeyn doono danahooda ka shaqeyn doono uu yahay aaminsanahay mana iska lihi warkaas iyo baarlamaanka ka tirsantaa amaan waan dareensanahay maxaa yeelay waxaan la kulmay baarlamaanka xubno aad u fara badan runtii qulubtooda iyo niyadooda iyo wanaaga iyo sidii u fikirayaan waa waxaan isleeyahay waa ku ammaanay laakiin siyaasiyiinta Soomaalida qaarkood waxa muuqanaya in arrin kale ay ugu hoos jirto Imaaraadka Soomaaliya gacanta Soomaaliya gashteen hadii aanu dad haysan
Ethiopia iyo Kenya arrinta Soomaaliya siyaasadooda faraha lamaanay galeen haddii aanay gabaad lahayn dowladaha ka sii shisheeyana kulley waa caynkaasi oo kale maxaa siyaasiyiinta ka dhigay ninkii bukay ee boqolka u talisay horta ninkii bukay boqolka u talisay waddanka dhamaaba ahba laakiin anigu ma raba inaan niyad xumo ka muujiyo arrintaas maxaa yeelay waddan aan la faragelin ma jiro annagaan laftirkeena Soomaalida ah oo itaalkaas lahaa wadamo kale faragelino waa iska caadi